adduunkan la mashquulay waxaad moodaa in qofku uusan marnaba helin waqti uu ku fikiro. Waqti la'aanta waxaaba ka daran in dadka badankiis aysanba u haysan in ayba u baahan yihiin in ay fikiraan oo ka fikiraan su'aalaha noloshooda sida weyn u sameeya oo ay ka mid yihiin maxaan maalin walba hurdada ugu toosaa haddii eebbe nafta ii daayo 3 sano 6 sano ama 10 sano kadib maxaan rabaa in aan noqdo ama gaaro dad iyo dunyo maxaan rabaa in aan ku xisaabtamo 10 sano kadib haddii eebbe idmo diin iyo cibaado hagee rabaa in aan ka joogo waxyaabaha aan maalin walba sameeyo maxaan u sameeyaa ka jawaabida su'aalahan ayaa keenaysa in fikradaas aad ka fikirto oo kaga jawaabto su'aalahaas ayaa ku jiheen kara horumar iyo in aad himiladaada hanato. Hadda ka horumarna ma isweydiisay su'aalahaas iyo kuwa la mid ah. Haddii aad isweydiisay waxaad ku socotaa wadadii aad ku hanan lahayd wixii aad rabto. Haddii se aadan weli isweydiinin su'aalaha hadda bilow waayo fikir aad aayahaaga ka fikirto waxa ugu horeeya ka jawaabida su'aalahaas. Fikir la'aantiis kama duwanid marka badweyn dhexyaal oo aan shukaan ama isteerso lahayn. taa micnaheedu waa in uu markabka huran yahay meesha hirku u leeyahiyo ama mawjudo hadba u leehiso in ay jiho u noqoto. ogow inta aad nooshahay waxa ugu weyn oo horumar ama dib u dhac ku geysiya waa sidii aad u fikirayso. fikirka ayaan shukaan ku noqon karaa kuguna aadin karaa jihada aad rabto. hubi in fikirkaagu ku jihaynayo sidii aad ku gaari lahayd himiladaada. maskaxdu waa mashiin maalintiiba ay ka soo baxaan fikirada kala duwan oo aan tiro lahayn. qaar waa kuwa ku oranaya himiladaada ma gaari karto, qaarna waa kuwa ku oranaya himiladaada waad gaari kartaa. fikradaha oo guud ahaan aan u kala qaadi karno samasheeg iyo humasheeg ayaa ku hirdamaya maankaaga waxna guulaysanaysaa tii aad si fiican u dhagaysato una barbaariso. tusaale waxaa tahay qof muddo shaqaynayay oo urursaday hooga hanti ah oo uu ganacsi ku samayn karo. waxaad ku hamiyeysaa in aad hantidaas maalgashato si ay kuugu shaqayso maadaama waxa kaliya oo hadda ku shaqeeya yahay hoogaaga. fikirka ah samasheeg wuxuu ku oranayaa hawsha qabo wuxuuna ku tusayaa adiga oo ku guulaysatay ganacsi horumarna sameeyay wax soo saarkaaguna kordhay. wuxuu ku oranayaa xitaa haddii aad sidii aad rabto aan ganacsigu ku noqon khibrad dhahasho ayaad u aayaysaa. samasheeg wuxuu ku oranayaa ganacsi waxba kama taqaan ee amaad ku khasaarta oo hoogaagii ku guntanaa ayaa kala furanta. wuxuu ku tusayaa khatar weyn oo ah adiga oo waxaad cimrigaagii oo dhan ururinaysay ay ku dhaaftay iyo in dadka ku arkaan adiga oo fashilmay.